markale kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada maanta casharkeena waxaan ku qaadanaa colorska ama midabada sidaan afgariga ugu baran lahayn marka aan wada socono luqadda Greek markii la joogo midabada wuxuu yaqaanaan kharomata oo marka aad inaad midab tilmaantid ama marka aad inaad color ka hadashid waxa oranaysaa kharomat marka Englishna waa colors Soomaali ahaana midabyada ama midab asbaro white cad ama cadaan midabka cad wuxuu yaqaanaan asbaro mafro black madow midabka madow wuxuu yaqaanaan mafro coquino red casaan midabka casasna muxuu noqonayaa coquino blue midabka bluega luqadda Greek wuxuu ku noqonayaa asna blue brasino green cagaar citrino yellow jaale midabka jaalahaasna muxuu noqonayaa citrino cafe brown bunni waa af Soomaali midabka kafeega af Soomaali waa bunni dhihida lagu kala gudisay filaya dadka qaarkeena cafe u yaqaanaan Englishkana waa brown laakiin si Greek wuxuu yaqaanaan ayaguna cafe u yaqaanaan grigio gray cawl ama cawlan midabka hadda meeshan soo saaray saad u fahantaan marka badanaa dadka xoolaha dhaqda aad u garanayaan qiyaasaya marka wax la yiraahdo cawlnaan baa la yiraahdaa ama cawlan Greek wax noqonaysa marka grigio Englishna waa gray waa midabka cawlan badanaa in badan ba aragteen marka haas orana midabka uu caadiya cadaan ku saay ma ahan wax aad ku cad baa la yiraahdaa cadaan ama white oo kale marka sidaas u fahma saaxiibayaal portocale orange waa midabka liinta ama liinta midabkeeda oo kale marka hadda midabka liinta oo kale waxaan soo aragnay casaanna waa soo aragnay jaalana waa soo aragnay marka waa midabka labada u dhaxeeya hadda casaanna ma jaalana ma marka hadda midab ahaan meesha ku soo saaray marka Greek ahaan wuxuu noqonayaa portocale naasi fiican u fahanteen baa idin filayaa saaxiibayaal maanta casharkan intaas ku ogyahay waana waxaa Yuusuf saaxiibayaal mar walba iyo goor walba waxa idin leeyahay goosha marna ka raja dhiganina waxa idin kaga tagay salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh